ilbaxnimo jiidan muddo ka badan 3,000 sano mid ka mid ah dalalka ugu mugga weyn xagga taariikhda waa dalka magaciisa rasmiga uu yahay Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar. Masar waa waddan ku yaala waqooyiga Afrika, xuduudihiisuna waxay gaaraan badda Mediterranean-ka, badda Cas, dhulka Falastiin, Suudaan iyo Liibiya. Masar waa dal laba qaaradood dhaca maadaama uu qayb ka mid ah uu ku yaalo Afrika, halka qayb kalena ay ka tirsan tahay qaaradda Asia. inta badan dhulka Masar wuxuu ku yaalaa waqooyiga Afrika. qaybta Asia-na waa gobolka Sinai oo ah qayb ka mid ah dalka Masar. waa dhul muhiim ah oo istiraatiiji ah oo isku xira Afrika iyo Asia. Masar waa mid ka mid ah dalalka ugu taariikhda dheer adduunka, iyadoona xadaaradihii faraacinta ay ka tageen dhismayaal waaweyn sida ahraamta oo dalkan dalxiisayaal badan ku kasbado. Masarta aadka u qadiimka ah waxay idlaatay kadib markii boqorkii Greek hore Alexander the Great uu qabsaday dhulka, isagoona aasaasay magaalada maanta ah midda labaad ee ugu weyn Masar ee lagu magacaabo Alexandria. Greek hore kadib, Masar awoodo kala duwan ayay hoos tagtay, sida Roomaankii, Muslimiintii, khilaafadii Islaamka, Cusmaaniyiinta iyo gumaystihii reer Yurub. waxayna Masar xornimada ka qaadatay Ingiriiska 26 July 1952 kadib kacaankii militariga ee uu hogaaminayay Jamaal Cabdinaasir iyo golihii dhexe ee dhalinyarada xorta ah. Ciraaq, Yemen iyo Masar calaamadoodu waa kuwo aad isku shabaha oo kaliya ku kala duwan astaamaha dhexda kaga yaal, waana calan ka yimid ololihii Carab midaynta ee horboodayeen hogaamiyaal Carabeed sida madaxweynihii labaad ee Masar Jamaal Cabdinaasir. Masar waa dalka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn Afrika. South Africa oo kaliya ayaana ka dhaqaale badan, wuxuuna dhaqaalaha Masar ku tiirsan yahay dalxiiska, beeraha, tamarta iyo kanaal biyoodka muhiimka ah ee Suez. kanaalka Suez waa marin biyood istiraatiiji ah oo isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Cas, wuxuuna ku yaalaa waqooyiga Masar, waana mid ka mid ah marin biyoodyada ugu muhiimsan marka la eego ganacsiga caalamka, maadaama uu yareeyo masaafo dheer oo ay maraakiibta ganacsi ku qasbanaan lahaayeen. in ka badan 12% ganacsiga caalamiga ah ayaa mara kanaalkan, waxayna Masar ka heshaa kanaalkan ilaa $10 bilyan. inkastoo dhawaanahan uu kanaalkan maraakiibta adeegsatay ay tiradoodu hoos u dhacday sababo la xiriira go'aanka ay soo rogeen Xuutiyiinta Yemen ay ku mamnuuceen maraakiibta qaar, gaar ahaan kuwa Israa'iil. Masar waa waddanka ugu dadka badan wadamada Carabta iyo kan saddexaad ee ugu dadka badan Afrika, kadib Nigeria iyo Ethiopia. Masar ayaa ah dalka saddexaad ee qaaradda ugu dadka badan, waxayna tirada dadkiisu gaaraysaa qiyaastii 110 milyan oo qof. ilaa 95% waa Masaari ama dad ka soo jeeda faraacintii hore Carabta iyo qowmiyado kale oo isdhexgalay. dad Nuubiyiin ayaa dalkan ku nool oo 3% ka ah dadka dalkan. waa dad leh luqad iyo dhaqan u gaar ah, waxayna ku nool yihiin koonfurta Masar, gaar ahaan halka dalxiisayaasha soo jiidata ee Aswan. dadka dalkan waxaa ka mid ah dad barbar ah oo galbeedka dalka dega iyo dad la yiraahdo Pecha oo ku nool bariga Masar, gaar ahaan gobolka xeebaha leh ee badda Cas. waa dad Kushitiga ah sida Soomaalida, Oromada iyo Canfarta, waana xoolo dhaqato sidoo kale ku nool Suudaan iyo Eritrea. dadka Masar ilaa 90% waa Muslimiin Sunni ah, qiyaastii 10% waa Kirishtaan. Masar waa xarunta fanka iyo suugaanta Carabta, waxayna caan ku tahay filmaanta, heesaha iyo warbaahinta, waxaana ka soo jeedaan qaar ka mid ah fanaaniinta Carabeed kuwooda ugu caansan. dadka Masar intooda badan waxay ku nool yihiin hareeraha webiga Niil ee ah webiga ugu dheer caalamka. webiga Niil waa laf-dhabarta nolosha Masar, wuxuuna door weyn ka ciyaaraa dhammaan dhinacyada dhaqaalaha, deegaanka iyo nolosha bulshada. in ka badan 90% biyaha laga isticmaalo Masar waxay ka yimaadaan webiga Niil, maadaama dalka intiisa badan uu yahay saxare. qiyaastiina 96% dhulka Masar waa saxare, waxayna dadka dalkan intooda badan degan yihiin dhulka ku teesan webiga Niil iyo xeebaha badda Mediterranean-ka. magaalada Qaahira waa midda saddexaad ee ugu weyn Afrika, waxaana dadka magaaladan degan lagu qiyaasaa 10 milyan. haddii la tixgeliyana dadka xitaa hareeraheeda ku nool, waxay noqonaysaa midda ugu weyn Afrika oo tirada dadkeedu waxay gaari karaan ilaa 20 milyan. Qaahira waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu taariikhda dheer dunida, waxayna la baxday naanaysta magaalada kunka minaaradood sababo la xiriira masaajida ku badan, waxaana ku yaalaan xarumo taariikhi ah sida Masjidka Al-Azhar. dowladda Masar waxay si weyn u maalgelisay caasimad cusub taasoo ku taala 35 kiiloomitir oo bariga Qaahira ah. waa mid dhacda bartamaha saxaraha Masar,
waxaana loogu talagalay inay noqoto xarunta cusub ee dawladda iyo inay culayska ka yareyso Qaahira. waxayna caasimadda cusub ee Masar durba la wareegtay iskoorada qaar ee u yaalay magaalooyinka Afrika, sida in laga helo dhismaha ugu dheer Afrika oo lagu magacaabo Iconic Tower. waxaa loogu talagalay dhismahan inuu noqdo xarunta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee ugu weyn Afrika. dhererkiisu wuxuu gaarayaa 393 mitir, wuxuuna ka kooban yahay ilaa 77 dabaq. caasimadda maamulka ee cusub waxaa la qiyaasayaa marka si rasmi ah loo dhammaystiro inay qiimo ahaan ku kici doonto $58 bilyan, iyadoona la qorsheynayo in magaaladan ay degaan dad gaaraya ilaa 6 milyan. dalkan waxaa laga helaa magaalooyin badan oo aad u fac weyn, sida Al-Uqsur oo ah magaalo lagu naanayso magaaladii boqolka albaab lahayd. waa magaalo taariikhi ah oo ku taala koonfurta Masar, waana mid ka mid ah meelaha ugu qadiimsan ee laga helo taariikhda ilbaxnimadii Faraacinta. sidoo kale waxaa loo yaqaanaa magaaladii boqorada, maxaa yeelay waa halkii ay boqorada Faraacinta ka dhisi jireen macbadyada ugu waaweyn. sidoo kale magaaladan waxaa loogu yeeraa madxafka furan ee ugu weyn dunida, sababtuna waa in magaaladan oo dhan ay u eg tahay goob taariikhi ah oo la daawan karo. Masar waxay leedahay dhowr goobood oo ku jira liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO, waxaana ka mid ah ahraamta uu dalka caanka ku yahay, macaabid iyo qabuuro boqorro lagu aasay, goobaha diimeed ee Qaahira ee qadiimka, Memphis oo ah caasimaddii hore ee Masar, iyo Wadi al-Hitan oo ah goob dabiici ah oo laga helo lafaha nibiriga. waxaa la sheegaa Masaaridii hore inay yihiin dadkii ugu horeeyay ee sameeyay kalandarka casriga. waxay hal abuureen kalandar qoraxeed oo lahaa 365 maalmood, iyagoo ku saleeyay dhaqdhaqaaqa qoraxda, waxayna u qaybiyeen 12 bilood. ciidamada Masar waa kuwa ugu awoodda badan qaaradda Afrika iyo dunida Carabta, waana mid ka mid ah 20 dal ee military ahaan ugu xooggan caalamka. Masar waxay haysataa askarta ugu badan ee Afrika oo gaaraya 1.3 milyan oo ah marka la isku daro askarta shaqada ku jirta iyo kuwa keedka ah. sidoo kale ciidanka cirka ee Masar waa kan ugu weyn Afrika iyo dunida Carabta. ciidanka badda ee Masarna waa kuwa kaliya ee Afrika iyo Carabta ee haysta maraakiibta xambaara diyaaradaha qumaantiga u kaca, wuxuuna dalka Masar haystaa ilaa 2 markab oo nuucan ah. Masar waa dalka Afrika ee miisaaniyadda ugu badan ku bixiya dhanka difaaca, waxaana sanadkii kaga baxda lacag ka badan $4 bilyan. awoodda intaan la egsay waa mid aan xaaladda gobolka aan go'aamin karin. xulka kubadda cagta ee Masar waa xulka ugu guulaha badan qaaradda Afrika. 7 jeer ayayna ku guuleysteen koobka qaramada Afrika, 3 jeer ayayna u soo baxeen koobka adduunka, laakiin ma ahan xulka Afrikaanka ah ee tirada ugu badan ka qayb galay koobka adduunka. oo xulka Cameroon ayaa rikoorkaas haysta oo koobka adduunka tiigsaday ilaa 8 jeer. dalka Masar waxaa sanadkii 2023 laga furay madxafka Faraacinta ee ugu weyn caalamka iyo mid ka mid ah madxafyada taariikheed kuwooda ugu baaxadda weyn. waxaa lagu keediyey in ka badan 100,000 oo shay oo taariikhi ah, waxaana loo soo raray waxyaabaha laga helay xabaalaha Faraacinta. waxaa loo dhisay hab casri ah si loo ilaaliyo taalooyinka Faraacinta, waxaana lagu dhisay madxafkan lacag gaaraysa $1 bilyan, waxayna tani madxafkan ka dhigaysaa inuu yahay madxafka lacagta ugu badan lagu dhisay.